halkan idinku soo gudbinaynaa miisaaniyaddii 2017 ka oo ka kooban dawladda dhexe, hay-adaha madaxa bannaan, dawladda hoose iyo dakhliga deeqaha caalamiga ah iyo dakhliga mashruuca maamul daadejinta. waxay miisaaniyaddani dheer tahay miisaaniyaddii sanadkii hore ay ka korodhay 27 iyo badh percentage bay kii hore ka badan tahay. waxaa kaloo hay-adaha qaar ku dhex jira oo aad ku arki doontaan buugga laydi siiyey in maadaama aydu sharciyadii BFM-kaynu idinkuna ansixiseen ee la dhaqangeliyey waxay keentay in lacagihii ay World Bank iyo deeq-bixiyayaashu ay awal toos ugu shubi jireen meelaha kale inay wasaaradda maaliyadda soo marto. marka ka BFM-kii waxaad ka arki doontaan inay wasaaradda maaliyadda $4 milyan ku jiraan, SDF-ta oo wasaaradda qorshaynta 8 milyan ku jiraan, wasaaradda environment-ka iyana way milyan iyo dheeraad ugu jira. ka lacagahaas imika toos waxay u soo maraan wasaaradda maaliyadda waxaana ku soo dhacaan waxaana saxeexaa xisaabiyaha guud iyo xisaabiyaha iyo maamulka lacagta ee wasaaradda maaliyadda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo kolba wasaaradda lacagta u socoto. miisaaniyaddan waxa ku dheeraada sanadkan markaad aragtaan waxay maraysaa marka la isku geeyo waa $2,175,104,355,662 dollar ahaana waa $362,000 $517,390. waxa xoog la saaray sanadkan aad arki doontaan inay ku qalabka iyo saanada ciidamada dalka ee kala duwan, kharashka doorashooyinka oo iyadana markii aanu shirar la galay qolooyinkii deeq-bixiyayaashii waxaad moodaysaa inaynu ay ka yara lacagihii hore ka baxay ay ku xisaabtameen oo ay yidhaahdeen lacagiiba naga yaraaday. marka waxaanu ugu talagalnay in doorashooyinka haddii lacag laga waayo hay-adaha ama deeq-bixiyayaasha inay dawladdu madaxa ku qaadato. ka 10 milyan baa iyagana ugu jira. waa kharashka doorashooyinka iyo kaadhbedelka, kordhinta mushaharooyinka shaqaalahoo dhan iyo ciidamada oo 10% la kordhiyey sanadkan. waxaa kaloo ku jirta iyana ictiraaf raadinta oo iyana aanu $2 milyan ugu daray. abaaraha baa jirta oo iyana $2 milyan lagu daray. mashruuca dhiraynta deegaanka oo wasaaradda deegaanku iyana way ku jirtaa. iibka kharashka laabka biyaha waxaa jira laab biyahoo ku dhamaahay waxaa sanadkan lagu daray miisaaniyadda warshado badan oo biyaha sameeyaa jira. imika biyahan aynu cabno dabeedna waxyaalo xanuuno yaryar oo berigii hore aan soo badan jirin, marka waxay soo codsadeen in laab biyaha lagu baadho iyo cuntooyinka iyo dawooyinkaba lagu baadho in la keeno. kaana lacag baa ugu jirta aduu $1 milyan gaadhaysa. dhiska iyo dayactirka wadooyinka dalka, dhismaha guriga martida ee Boorame. guriga martida ee Boorame sanadkii hore bilaabmay dhexduu ku kala go'ay, isna intii ugu hadhay baa sanadkan ugu daray. dhismaha MCH-yada uu madaxweynuhu dhagax dhigay. dhismaha goobaha debdemiska Boorame, Burco iyo Wajaale. dhismaha garoonka cusub ee Shulaa Stadium. dhismaha guryaha macallimiinta sanadkan waxaanu ugu talagalay in marba village macallimiintu leedahay la dhiso. ka sanadkan $5 milyan baa ku jira in macallimiinta guryo loo dhiso. dhismaha goobaha kalluunka, dhismaha rugta kutubta ee Boorame, dhismaha rugta kutubta ee Berbera, dhismaha jeelalka Burco,
jeelka burco dhismaha xafiisyada wasaaradda dhismaha maahe waa dhammaystirka waxaa noo socda xafiisyada wasaaradda maaliyadda wajaale oo dhammaad maraya berbera oo dhammaad maraya iyo burcono iyana bilownay markaan bilaabayno dhammaystirkoogii dayactirka garoonka kubadda kolayga ee timcadde sanadkii hore 50 kun baa ugu jiray dabeedna markii la yidhi hala dedo garoonka basketka lagu ciyaaro lacagtii way leekaan weyday dabeedna sanadkii way ka dhacday sanadkan baan ugu daray markaa lacag ku filan bisankay keeneen daryeelka iyo dib u dhiska iskuullada dalka iskuullada cusub waxaa dhisa hay-adaha laakiinse iskuullada dayactirkooga iyo dib u dhiskooga iyo iskuulladii hore dhisnaa in dib loo hagaajiyo wasaaradda waxbarashadaa shaqo ku leh iyadana markaa lacag baa loo geliyay iibsiga qalabka caafimaadka iibsiga gaadiidka debdemiska iibsiga gaadiidka iyo qalabka xafiisyada wasaaradaha iyo hay-adaha kaalmada madxafka saryanna waxa weeyaan madxaf kaa SNMT iyo wax lagu oo halkan ka furan isagana lacag baan ugu daray sanadkan kaalmooyinka agoomaha kaalmada ururka sanadkan waxa ku dheeraada intii hore ku jiraan soolja way ku jirtay waxa ku jira naafada sanadkan laakiinse waxa ku dheeraada kuwii hore waxa ku jira wanaag farista iyo xumaan reebista waxa sanadkan laakiinse ku cusub ururka dhakhaatiirta iyo kaalmada dallada dhalinyarada ee Soonyo iyo mashruuca xanaanada xoolaha intaas wixii dheeraadii ku jiray sanadkan inta kalena waa sidii hore ka waxa weeyaan waxa ku jira oo lacagaha sanadkan inugu dheeraada dakhliga soo galay oo isagoo aynu January filayna 10 milyan oo DB Worldku ay entry ticket ku bixinayeen iyo 2.5 ah kiradii dekada taasuna waxay ku jiraan dakhliyadeena soo galaya sanadkan hadii alla yiraahdo inuu filayna January oo budgetka ka muuqda waxa kaloo inuu filayna waxaanu sameeynay sanadkan waayo xoolihii waa ka yaraa insha Allah waxa leeyahay xooluhu iska hagaagayaan oo ilamaha la joojin laakiin haday dhacday la joojiyo waxaanu sanadkan bilownay GST ama VAT waxa la yiraahdo waxa weeyaan koobka shaahaba wax yar baa saaran oo ay counterka lacag dhigaya aan u keenayna dabeedna waxa weeyaan shay wixii la iibiyaba GST-gaas uu la soconaya waa goods service tax ama kii ahaan jiray value added tax kii ay adduunka oo dhan ku shaqeeyaan waxa dhaqan galaya shuruucdii aad halkan ku ansixiseen oo runtii noo soo jiiday in lacaga badan oo qalaad ay ku soo dhacdo wasaaradda maaliyadda JPLG-gisna CDC buu soconaya SDF mid walba waxay idinku qoran tahay buugga sanadkan wixii ay bixinayaan